waxay ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay taasoo ay isa kaashadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankan Turkiga iyo waliba ururka ardayda Soomaaliyeed ee Istanbul 60 sano guuradii ka soo wareegatay markii aan dawlad noqonay ayuu ahaa dabaaldega waxaana goobta hadalla ka jeediyay shakhsiyaad hormuud u ah bulshada Soomaaliyeed talyaaniga koonfurta Soomaaliya waxa uu matalayay la dhaho Kasesa Maria Dibeji wuxuu warqad u soo qoray Sheekh Xasan Barsame Allah u naxariistay uu ku leeyahay ciidamada iyo hubka haysata soo wareejin dagaalka gumaysta kula jirta talyaaniga jooji sheekha uu diiday sheekha hadal taariikhda gala ayuu u diray uu uga jawaabay warqadii loo soo diray hadalkii baan rabaa maanta in wax ka mid ah inaan idin sheego Sheekh Xasan Barsame wuxuu ku jawaabay hadalkiisa uu bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim bisinka Allah ayaa ku bilaabay waxay soo gaartay waraaqdii aan ii soo dirtay waana fahmay wixii ay ka koobneed laakiin waa qasab inaan ku ogeysiino inaan annaga adeeci doonin awaamirta gumaystaha dowladdii intaas waa dad waxaan rabaa inaan mar walba aan ka hadlo caawa qabadka gudoomiyaha jaaliyadda waa Sheekh Maxamed waa qof Soomaaliyeed oo aan dareemi karno waxa uu qabtay oo wadankan uu ka sameeyay hana qabto caafimaadka isku xirka istiqaamada xafiiska jaaliyadda oo sameeyay garab istaagga walaalaha Turkiga mar walba waxaan leeyahay gudoomiye waxa aad qabatay waqtiga iyo taariikhda ayaa xusi doonto ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta waxaan ahay gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed Istanbul hadal badan meesha ma yaalo laakiin waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo munaasabadda lixdan guuradii ka soo wareegtay maalinta xornimadeena waa maalin ku suntan maalin qaran waa maalin awoowayaasheen u dhiigbaxeen laakiin anagii aan chance u helin waxaan filayay in aabayaasheen awoowayaasheen hore ee heli jireen waxbarasho firiya wax walba u sahlaya waxbarashadooda iyo noloshooda laakiin anagu ay tahay in waalidka naga tacaalo dadka inta fadhiya badanaa waxay u badan yihiin dhalinyaro anaga waxaan ku abtirsanaa qur-aanka kariimka guul kastoo la gaaro haddayna oqon lahayd guulihii u waaweynaa ama ghazawaadkii uu galay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa hogaaminaysa dhalinyaro waxaa ku arkaysaa hal aayad aad iyo cajibgelisaa jirto asxaabulkahfigii markii oo ilaahay uu tilmaamayay astaan uu ka bixiyo inuu bixiyo markuu rabay wuxuu ku tilmaamay innahum fidyatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga mudane Sheekh Maxamed Maxmuud ayaa dadka ku baraarujiyay inay bartaan taariikhda dalkooda gabagabadii waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobadaareed maalmihii la soo dhaafay dadku laba sheegaya laakiin saddexda marka lagu daro Jabuutina waxay ahayd maalmo wanaagsan saddex maalmood waqooyi koonfur Jabuuti ayaynu soo dhaafnay waana kuwa ugu dabaaldegaynaa waa maalmo Soomaaliyeed waana maalmihii aynu xorownay laakiin waxaan rabaa anuu caawa inaan su-aalka weydiiyo waxaan waynu xorownay waagaa waa looba laakiin hadda xor ma nahay mise gumaysta aynu haysa su-aashaasaan rabaa weydiiyo caawa Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.